waxaa jira cuntooyin badan oo aan u wanaagsaneyn ilkeena isla markaana si maalinle ah u isticmaalno. Cuntooyinkaas waxaa ka mid ah cuntooyinka ay ku badan tahay sokorta ama sokorta laftirkeedaba, iyo sidoo kaleeta shukulaatooyinka. Ani ahaan waxaa ka mid ah dadka shukulaatooyinka aadka u isticmaala, oo waxaa aad u jeclahay shukulaatadan loo yaqaano Snickers. Marka Snickers loafers ka mid ah. Muuqaalkan waxaa kugu sharxi doonaa markaa cuntooyinka aan u wanaagsaneyn ilkeena iyo sidoo kaleeta dhibaatooyinka ay ku keeni karaanba. balse intuusan muuqaalka bilaabanin waxaa kaa codsanaya inaad muuqaalka like saarto, sidoo kaleetana aad la wadaagtid saaxiibadaada si ayagana cuntooyinka iskaga ilaaliyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. Si aad muuqaalka hore iska soo aragtay, muuqaalka waxaa rabaa inaan ku sharxo cuntooyinka aan u wanaagsaneyn ilkeena isla markaana kugu keeni kara xanuuno badan. Intaan u gudbin cuntooyinkaas waxaa rabaa marka hore inaan si hordhac kugu sheego cuntooyinkaas xanuunada ay kugu keeni karaan. Cuntooyinkaas aan u wanaagsaneyn ilkeena xanuunada ay keeni karaan waxaa ka mid ah number 1 xanuunka loo yaqaano suuska ama shuushka, number 2 xanuunka loo yaqaano cirid dhiigga, number 3 xanuunka loo yaqaano afshiirka. Sidoo kale xanuuno kale oo ka badan way keeni karaan. Haddii aan u gudbo cuntooyinkaas waxaa ka mid ah number 1 macmacaanka. Waxaa ula jeedaa cuntooyinka ay ku badan tahay sokorta. Inta badan waa jecelnahay macmacaanka. Haddaas u fiiriyo macmacaanka waxaa ka mid ah shukulaatooyinka, cuntooyinka si guud sokorta ay ku badan tahay, keegiska iyo guud ahaanba wax walbo ay ku badan tahay sokorta. Sidoo kaleeto cuntooyin kale aan u wanaagsaneyn ilkeena waxaa ka mid ah number 2 wax loo yaqaano acidic food, oo ah cuntooyinkii ku badan tahay aashitada. Cuntooyinka ama cabitaanada ay aashitada ay ku badan tahay sida wada ognaanay waxaa ku badan sokorta. Cabitaanadaasi waxaana ka mid ah Coca-Colada, Sprite-ka iyo wixii la mid ah. Sidoo kaleeto waxaa jira cuntooyin acid natural ah acid ay ku badan tahay sida liin dhanaanta, liin babeelmada iyo wixii la mid ah. Marka cabitaanadaasi ama cuntooyinkaasi si caadiyan waxaa ku badan sokorta. Marka laga soo tago sokorta, cabitaanada acidka waxay burburinayaan iliga. Marka iliga markuu burburo oo khafiif uu noqdo, wuxuu u nuglaanayaa waxyaabo badan sida inuu sus ku dhaco, inuu iliga kala jabo, waxyaabahaas dhan ayuu u nuglaanayaa. Marka guud ahaan cabitaanada acidka leh ama cuntooyinka acid ay ku badan tahay uma fiicna ilkeena. Sidoo kaleeto cabitaanada acid ay ku badan tahay waxay keeni karaan wax loo yaqaano tooth discoloration, oo ah inuu midabka ilkeena uu isbedelo. Marka tal ahaan waxaa kuu sii lahayn haddii cabitaanadaas aadan ka maarmin inaad markaad cabtid kadib biyo badan aad cabtid ama aad kala luqatid si acida aysan ilkaada u burburinin ama midabka ilkaada aysan u bedelin. Sidoo kale waxyaabaha kale ee aan u wanaagsaneyn ilkeena waxaa ka mid ah number 3 wax loo yaqaano barafka. Dadka qaar waxaa jiro barafka calaaliyo ama sida cuntada uu cuno. Dadkaas barafku wuxuu ku keeni karaa inuu ilkeena kala jabo ama dhaawac u gaarsiiso. Marka barafka haddii aad biyo ama cabitaan aad ku darsatid oo sidaas ku cabtid, caadi waa wax dhibaato ah ma keeni karo. Balse sida cuntada haddii aad u calaajid ama aad jibisid, waxaa dhici karto inuu iligaaga kala jabo kadibna uu rajo lahaa waayo oo la saaro. Marka waxaa kugula talinayaa barafka oo aad calaalinaysid ama sida cuntada aad cunaysid inaad iska joojisid. Sidoo kaleeto waxyaabaha kale aan u wanaagsaneyn ilkeena waxaa ka mid ah number 4 wax loo yaqaano alcohol-sha. Waxaa jira cabitaano ku badan tahay alcohol-sha ama dawooyinka ilkaha lagu luqluqdo. Marka dawooyin waxaa jira inta badan alcohol ku jirto. Marka waxyaabaha alcohol-sha inta badan afkeena waxay ku keenaysaa wax loo yaqaano dry mouth, oo ah inuu afkeena qalalo. Afkeena markuu qalalana waxaa u nuglaanaynaa waxyaabo badan. Waxyaabaha u nuglaanayna markuu afkeena qalalaya waxaa ka mid ah suuska iyo guud ahaan xanuunada ku dhaca ciridka, gaar ahaan xanuunka loo yaqaano yiridka. Marka waxyaabaha alcohol-sha ku badan tahay guud ahaan inaad ka fogaatid ayaan kugula talin lahay. Qodobada hadda aan soo sheegay waxaa is leeyahay waa kuwa ugu muhiimsan ee saameyn karo ilkeena. Haddii aadan ka maarmin midkooda ama dhammaantoodba, waxaa kugula talin lahaa markaad isticmaashid kadib in si degdeg ilkaada u nadiifisid ama aad kala luqatid ama aad biyo badan aad cabtid. Waxaa jira sidaas la mid ah cuntooyin u wanaagsan ilkeena isla markaana awood badan siiyo. Muuqaalka soo socda ayaan isku dayi doonaa inaan ku sharxo, waa haddii dad badan ay xiiseynayaan. Marka haddii aad xiiseynaysid in muuqaalka soo socda aan ku sharxo cuntooyinka u wanaagsan ilkeena isla markaana awood badan siiyo, qaybta hoose faalada igu soo qor.
anigoo kaaga mahadcelinaya daawashada muuqaalkan. waxaa ka codsan inaad muuqaalka like saarto sidoo kaleetana aad la wadaagto saaxiibadaada si ayagan ugu faa'iidaystaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.